afayeenka jaaliyadda Puntland ee dalkani Jarmalka ee magaceeda loo soo gaabiyo PDF Mustafa Saciid Aadan ku magac dheer Bucuf oo telefishinka caalamiga ee Cable TV ugu waramayay magaalada xeebeedda Hamburg ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan shaqaqooyinkii dhawaan ka dhacay deegaano ka mid ah Puntland kuwaas oo shacabka qaar ay kaga soo horjeedeen doorashooyinkii dawladaha hoose markii dambena loo hakiyay marka ugu horeysa waxaan rabaa in aan ka faa'iideysto waqtigeyga waxa way ummadda islaamka meel kasta ee caalamka joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr ciid wanaagsan dhammaantiin marka ku xiga waxaan rabaa inaan halkan ciid iyagana uga diro madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdiraxmaan Faroole iyo ku xigeenkiisa generaal Cabdisamed Cali Shire iyo dhammaan dawladda waxyaheeda kale marka xiga waxaan u mahad celinayaa telefishinka Cable oo nagu soo booqday magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka aad iyo aad ayaad ugu mahadsantiin ayaan leenahay shaqada wanaagsan ee shacabka u haystaan marka xiga haddii aan su'aashaada u soo laabto Mustafa run ahaantii aniga gaar ahaan ayay si fiican ii taabatay magaalada Qardho ayaan ku soo koray kuna soo barbaaray waxna ku soo bartay shaqada ka dhacday aad iyo aad ayaan uga xumaanay shacabka reer Qardhoodna maanta inay hub gurtaan oo matqana amniga wax u dhimaan run ahaantii ma aanan jeclaysan haddii aan nahay jaaliyadda dibadda iyo dhammaan reer Puntland inta dibadda ku nool wax aad iyo aad looga naxay ay ahayd waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo intii ku dhimatay sarkaalka ku dhintana waxa leeyahay sarkaal wuxuu ahaa shacabkiisa shaqadii loogu dhiibay u hayay waqti uu dhimanayay ilaahayna ha u naxariisto dhaawacna ilaahay caafimaad ha siiyo ayaan leenahay dhanka kalena afayeenka jaaliyadda Puntland ee dalkani Jarmalka ayaa weydiiyay go'aan dhawaan ka soo baxay maamul goboleedka Puntland kaas oo sheegayay inay xiriirka u jareen wada shaqaynta ay la lahaayeen dawladda federaalka ah ee uu hogaamiyo Professor Xasan Sheekh Maxamuud sida ka jaaliyad ahaan ay u arkaan run ahaantii anagu haddii aan nahay jaaliyadda reer Puntland markasta waxaan ugu waajibaa oo sida ay tahayna sharciyan in aan taageerno xukunka ka soo baxa dawladdeeda dawlad goboleedka waa ku taageersanahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan sida ay ku aansadeen ummadda reer Puntland waayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanku dhammaantood dawladdu waxay ka turjuntaa waxa weeye shacabka rabitaankiisa ayaa taas meesha ka cad shacabka rabitaankiisu wuxuu sheegayaa in ay dawladda Soomaaliya federaalka ah in federalismkana xoojiso sharciga oo dastuurkana waxa ay reer Puntland ay tamanayaan ayna hagaajiso waxaan ka qaldanay saaxiibo mar kale waxa aan weydiiyay afayeenka jaaliyadda Puntland ee dalkani Jarmalka sida uu arko hadal dhawaan ka soo yeedhay ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo sheegay inuu isu soo taagayo madaxtinimada dawlad goboleedka Puntland run ahaantii qof kasta oo citizen reer Puntland ah waa isu soo sharaxi karaa jagadaas madaxtinimada laakiin waxa isweydiin leh waqtiga lagu jiro Dr. Gaas waxaan ila ahayd in uu ka fiirsado musharaxiintu soo sharaxay waxa way waa nin citizen reer Puntland waa tan kalena waa nin xil ka soo qabtay dalka Soomaaliya walina xil sare run ahaantii maantana Puntland waxaan anu ka digi lahaa in dhibaato loo horseedo oo dhibaato siyaasadeed ama carqalad xagga amniga wax loo dhigo waayo sababtoo ah amniga qof kasta muhiim ayuu u yahay ninka carqaladeeyana ha ogaado maanta inay dhibaato isaga u keenayso mustaqbalka run ahaantii Dr. Gaas waxaan u malaynayaa waqtigan waqti aad iyo aad u adag tahay oo soo sharaxay tan kalena in laga daayo Puntland usha hadba la isu dhiibayo oo usha dadka loo wada dhiibo run ahaantii oo dadka loo wada qaybiyo madaxtinimada iyo dawladda iyo inta cidii madax ka noqon lahayd Mustafa Xaaji Aadan Haaruun telefishinka caalamiga ee Cable TV wararka Yurub